بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دي الله قدرين إن شاء الله أرضي 10 كينا مانتا وحكساب سنان دونا أما ونقون دونا our children's inheritance. marka waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa waa dhaxalka carruurteena. waxyaabaha carruurtu dhaxal ahaan loo siin karo ama looga tagi karo. guri, gaari, lacag, maal iyo hanti baa mise intaa way ka badan tahay. bal weyn isleegi doonaa inay intaas un tahay iyo inay intaa ka badan tahay hadii la qadaro insha Allah. waxyaabaha aan doonayno in ka hadalno waxa ka mid noqon doona carruurtu dhagaadkaanta miyay ku dhashaan yacnaanimada iyo madax adayga mise waa xaalad qofka si kale ugu timaada. sidoo kale waxaynu wax ka tilmaami doonaa habdhaqanka oo caanka ku yahay ilmaha had iyo jeer dhagaha adag leh bulshada dhexdeeda waxyaabaha lagu aqoonsado. iyadna intaa waxaan ku dari doonaayo inoo raaci doontaa had iyo jeer carruurta dhagaha adag leh dhagaadkaanta waxyaabaha ku qasbay ama ku kalifayeen dhagaadkaadaan oo carruur noocan u dhaqma ay noqdaan. ugu dambeyn waxaynu sheegi doonaa dhowr qodob oo aynu aragna xal amaba qofka haddii uu qof dhaga adag yahay hab noocaas ama nidaam noocaas oo loola dhaqmo oo xaaladiisa dhagaadkaanta ama canaadnimadii ay wax iska bedeli karaan. marka ugu horeysa waxa weeyaan as Muslims we have been blessed with the guidance the creator of the heavens and the earth, and he gave us all Muslims and non-Muslims this beautiful earth was lovely prepared for the mankind. So, and here is everything we could have in it. Allah subhanahu wa ta'ala Muslim ahaan wuxuu nagu manaystay nimcooyin aad badan oo kala duwan, hadiyada qaaliya ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta uu ku manaystay. adduunkan quruxda badan leh aynu aragnana was lovely prepared for the mankind. waxa uu Rabbi subhanahu wa ta'ala u diyaariyay dadka bini'aadamka Muslims and non-Muslims. sidoo kale adduunkan iyo dhulkan quruxda badan leh aynu aragno Rabbi waxa uu dhigay dushiisa everything we could have in it. wax walba oo qofka bini'aadamka baahidiisu ay tahay oo u baahan yahay waxa uu ka helayaa dunida korkeeda. tii ay taasi jirto nimcada aadka u qaaliga hadiyadaha faraha badan leh aan la tirin karinin Ilaahay dadka bini'aadamka ugu deeqay haddana waxay ula macaamilaan ama ay ula dhaqmaan nimcada Rabbi dadka bini'aadamka uu ku manaystay qaabka ilmaha dhagaha adag leh uu ula macaamilo ama uu la dhaqmo hadiyadaha la siiyo. marka ugu horeysa bal waxaan isweydiinaynaa small child qof nooc ma a child who is spoiled behaved badly because he always given what he wants and allowed to do what he wants. If you give him or her a gift, he uses them and then threw away carelessly without concern or care about the consequence of that. ilmaha had iyo jeer dhaga adag leh wuxuu caan ku yahay he behaves badly. Number 1, dhaqankiisu waa dhaqan aad ah. He always given what he wants. carruurta dhagaha adag leh sidoo kale waxa la siiyaa wax kasta ay u baahdaan and allowed to do what he wants. isla markaana waa in loo ogolaado ilmaha dhagaha adag leh wax kasta uu doonayo inuu sameeyo. haddii imika hadiyad la siiyo carruurta dhagaha adag leh had iyo jeer waxay caan ku yihiin uses them and throws them away. hadiyadii ilmahaas uu isticmaalayaa dabeetana uu tuuraya isagoo aan ka fikirin natiijada iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara. had iyo jeer carruurta dhagaha adag leh waxyaabaha ay caanka ku yihiin ee bulshada dhexdeeda lagu arko. intaanan gelin ka hor waxaan doonayaa I have to ask you a question. inaan su'aal idin weydiiyo. su'aashaasina waxay noqonaysaa dhagaadkaantu ma wax lagu dhashaa mise laguma dhasho? horta xaqiiqadu waxay tahay angering and spoiling are not something a child with born. ma aha dhagaadkaantii canaadnimadii iyo madax adaygu wax ilmuhu ku dhasho as many mothers think. laakiin hooyooyin aad u badan waxay ka fikiraan ama ay u haystaan in dhagaadkaantii iyo canaadnimadii iyo madax adayga carruurta ay ku dhasheen. xaqiiqadu laakiin taa way ka fog tahay. waa xaalad ilmaha ku dhacda xilliga koritaanka nololeed waana psychological change. isbedel nafsaani iyo carruurta ku dhaca ayaa keenay inay carruurtu noqdaan canaad ama ay madax adkaadaan oo ay cidba maqli waayaan isla markaana ku dhiiradaan wax kastoo ay doonayaan inay sameeya
sidoo kalena wax walbo ay rabaan ilaa la siiyo mooyee aan ka joogsanin astaamo dhowr oo caan ah oo lagu aqoonsado ama lagu garta baa jirta carruurta dhagaha adag ee bulshada dhexdeeda dhowr qodob baynu tirinaynaa dhowrka qodob aynu tirinaynaa waa astaamaha ay caanka ku yihiin carruurta had iyo jeer dhaqanka xun ee canaadka ee madaxa adag leh ee raba waxa iyagu doonayaan in loo sameeyo qodobada aynu tirinayno aad ugu fiirso astaamaha aynu sheegayna qaar ka mid ah haddii aad ku aragto dadka kula nool faamiligiina amaba bulshada kale aad ku dhex jirto ama adiga laftarkaagu astaamaha haddaad isku aragto xaqiiqdu waxay tahay inaad tahay qof dhaqankiisu aanu fiicnayn isla markaana dhagaadag oo canaada oo doonaya in wax kasta uu rabo loo yeelo amaba jecel in wax kasta uu helo isagoo aan ka fikirin natiijada iyo cawaaqibka ka dhalan kara waxaas number 1 carruurta dhagaha adag ee bulshada dhexdeeda marka la joogo waxay caan ku yihiin oo lagu aqoonsadaa waa constant lack of jokes kaftan la'aan joogta had iyo jeer ma aha dad kaftan badan oo kaftan wadaag la'a dadka ku ag xeeran tusaale haddaynu soo qaadano familigeena ama qoysaskeena waxaa jira hal ilmo whether he or she ama